مدبّضاً بمدح وحنا لقى قلنا سومالي وال هيستا سومالي لما هيستو سومالي وضد حرة وضد حرة سوماليا waxay diyaar u tahay wadan walba oo caalamka ah inay la jaan qaado oo ay la saaxiibto oo aan naloo tilmaamin wadankan la saaxiibi lahayn iyo wadankan la culoobi lahayn taasna ana ugu horeeya oo leh Soomaaliya waa xor dadkeenu waa xor dalkan rabnaan la saaxiibi karnaa oo dana Soomaaliya ka shaqeynaya wadan walbana waxaan rabnaa inaan macaamil la sameysano sida dunida qaarkeed sanduuleyta ma ogoli ninna kabaha uma sido sida dunida qaarkeed sanduuleyta ma ogoli ninna kabaha uma sido ninka iga satroolo siintaada magacal ogow kama sugay ninka iga satroolo siintaada magacal ogow kama sugay ana oransa sababadow dareen seexda malihiyo Soomaali baanahay Soomaaliya waa mid ka mid ah dalalka xubnaha ka ah ururka qaramada midoobay taas ayaana keentay in xogayaha guud ee qaramada midoobay uu soo magacaabo ergey gaar ah oo u qaabilsan Soomaaliya haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay waa maxay shaqada uu xil saaran yahay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya sanadkii 2013 golaha ammaanka ayaa isku raacay qaraar ama go'aamo qeexaya shaqada uu qabanayo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya go'aamadaasi waxa kamid ahaa in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu ka shaqeeyo isku dubaridka taageerada deeq-bixiyaasha ay siiyaan Soomaaliya ka talinta hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo arrimaha siyaasadda ka shaqeynta nabadda iyo dib-u-dhiska hay'adaha dawliga ah haddaba taas bedelkeeda wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay dhawaan ay u soo magacawday Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa waxa uu bilaabay markii uu joogay bilo kooban inuu faraha la galo arrimo u gaar ah dadka Soomaaliyeed taas oo keentay in dawladda Soomaaliya ay dhowr jeer siiso digniino ku aadan inuu faraha kala baxo hawlaha uu gacanta kula jiro oo uu xoog saaro shaqadii dhabta ahayd ee laga sugayay heshiisyada caalamiga ah ee la isku waafaqay waxa kamid ah in diblomaasiga uusan faragelin ku samayn karin wadanka uu wakiilka uga yahay urur caalami ah sida qaramada midoobay dal kasta oo madax bannaan waxa uu leeyahay arrimo aysan diblomaasiyiintu faragelin ku samayn karin heshiisyada caalamiga ah sida midka Geneva waxa ay qeexayaan in diblomaasigu uusan faragelin ku samayn karin wadanka uu martida u yahay ama martigeliyay ama uu shaqada u joogo ee uu soo magacaabo xogayaha guud ee qaramada midoobay haddii aynu soo sheegnay shaqada dhabta ah ee wakiilka qaramada midoobay oo ay tahay sidaas aynu sheegnay xeerarka caalamiga ahna ay sidaasi dhigayaan waa maxay sababta ku kaliftay wakiilka qaramada midoobay in uu faraha la galo arrimaha dadka Soomaaliyeed wakiilka qaramada midoobay Nicholas Haysom waxa uu iska dhigay digniinaha uga imaanayay dawladda Soomaaliya isagoo aan si aan gabad lahayn uga shaqeeyay kala qaybinta dadka Soomaaliyeed iyo fashilinta dadaalka dawladda Soomaaliya ugu jirto soo celinta sharafta iyo dawladnimada Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo u dulqaadan weyday habdhaqanka qalafsan ee meel ku dhaca ku ah madax banaanida Soomaaliya oo wado Nicholas Haysom ayaa ugu dambeyntii soo saartay go'aan kama dambaysi ah oo dalka looga saarayo go'aanka dawladda ayaa nuxurkiisu ahaa ilaalinta qarannimada iyo sharafta dalka iyo dadka Soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in go'aanka Soomaaliya ay qaadatay ee ku aadanaa cayrinta wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya uusan ahayn mid lagu degdegay go'aanka lagu eriyay Nicholas Haysom laguma degdegin ee waa ka fiirsanay waxaana siinay waqti inagoo u soo gudbinay talooyin ku aadan shaqadiisa balse maalinkii uu dalka yimid waxa uu sameynayay hadallo meel ku dhac ah iyo shaqooyin meel ku dhac ku ah qarannimada Soomaaliya ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad la iyo markii uu wakiilku yimid dalka wuxuu ku dhaqmayay wuxuu muujinayay dhaqamo baal marsan oo dhinac marsan isaga shaqadiisa arrimaha dalka ayuu faragelinayay
wuxuu ku dhaqmayay wax sii fogeyn kara maaragtay maxaa la yihahdaa khilaafyada jiri kara oo siyaasadeed wuxuu isa siinaya awood ah inuu dalka madaxdeeda la mid yahay ama isagu dalka u xukumo taasoo ay tusaale u tahay warqadii ugu dambeysay oo uu u diray wasiirka amniga ee Soomaaliya oo aan ahayn mid waafaqsan isaga shaqadiisa mas'uuliyadiisa meel ka dhacna ku ah UN-ta iyo qarannimada Soomaaliya. shacabka Soomaaliyeed ee ku kala nool gobolada dalka ayaa si weyn oo reereyn leh ugu riyaaqay go'aanka dawladda. Dad badan oo Soomaaliyeedse waxa ka yaabiyay oo ay ka caroodeen falcelinta ay ka bixiyeen go'aanka dawladda shakhsiyaad kooban oo markasta u taagan inay mucaaradaan oo sawir khaldan ka bixiyaan tallaabo kasta oo ay dawladdu qaado. sida caadiga ah markii ay taagan tahay arrin xasaasi ah oo ku saabsan qarannimada dalka kana timi gacan shisheeye waxa muhiim ah in loo midoobo difaaca qarannimada laakiin nasiib darro kuwa inaga mid ah ayaan ku baraarugsanayn arrinkaasi. waxaan idin ballan qaadayaa inaan aqbali doonin in la cabsiyo inaan aqbali doonin in dariiqa saxda ah nala ka leexiyo inaan aqbali doonin in la yiraahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka ridayna inta aan annagu madaxda nahay anigoo ku hadlaaya keyga iyo kan madaxweynaha waxaan idin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maadsantii qayb ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo la hadlay nabad iyo nolol ayaa dareenkooda nala wadaagay waxaana ka mid ahaa waxaan soo dhaweynayaa dawladnimada ah hadalkii ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay ku diiday ergeyga Soomaaliya warkii uu yiri dawlad dal xor ahaan lahay dad wax diidi karaan lahay danjire inuu anaga dalkanaga danjire ah oo dawlad islaamiyad soo dirsatay ma adduunku soo diray in laga diido waa wax sax weeye waa dawladnimo waaye madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa xasan cali khayre waxaan u dirayaa baaqaas oo ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ilaa maalinkii la doortay ilaa iyo hadda waxaad ka shaqeynaysaan danta guud kama shaqeynaysaan dan gaar ah iyo dana mataqaanaa ay wataan shisheeyuhu waxaan idin leeyahay mar walba saas ahaada annagu waxaan nahay shacabkii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya meel walba ay joogto waa idin taageeranaa aad baan u mahadsantihiin magacay waxa la yiraahdaa Faarax Jaamac waxaan u aragnaa daljiraha Soomaaliya ay u soo magacaabtay qaramada midoobay oo ay Soomaaliya ka saarnay haddii dawladda Soomaaliya ay tir ka bax dalka Soomaaliya way ku saxan tahay maxay dalka mas'uul ka tahay dawladda Soomaaliya dalka mas'uulka wixii dalka dan u ah ayada taqaana ayadana mas'uulka ergeyga qaramada midoobay in dawladda cayriso aad baan u soo dhaweynaynaa because waa wax mataqaana lagu faano waaye dawladdan dawladii hore ka duwan tahay waxa hogaamiya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leenahay aad baan u soo dhaweynaynaa ninka in la eriyo waa nin waxa weeye Soomaaliya aan rabay in dawlad noqoto waa markii ugu horeysay tan iyo 19 wixii ka dambeeyay nimanka isku magacaabay beesha caalamka la tuso awoodooda iyo inay Soomaaliya siyaasadda iyo rogrogeeda ay inay iyagu markii hore gacanta ku hayeen ay ismoodi jireen laakiin se la tusay in laga maarmi karo ummadda Soomaaliyeed taasina waxay ku timi kartida iyo ku dhiirashaha xasan cali khayre iyo maxamed cabdullaahi farmaajo bulshada Soomaaliyeed waxaan u dardaarmayaa isku duubni iyo in dawladda la garab istaago iyo madaxweynaha qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaheena barakeysan marka qaramada midoobay nin kala ha keensadeen nin aan faragelin ku sameynayna siyaasadda dalkeena ha keensadeen siyaasadda dalkeena anaga u madax banaanada shakhsi baa qaldamay shakhsiga qaldamay waxa la yiraahdaa ninka qaramada midoobay uu fadhiyo halkan qaramada midoobay barnaamijkooda haddii uu joojiyaan ninkaas qaldamay waxaanu arkaynaa markaas gumaysi maldahan inay yihiin oo maartay gumaysina la doonayaan go'aankii dawladda Soomaaliya ay ka qaadatay jamcadda qurumaha ka dhaxaysa wakiilkeedii joogay Soomaaliya waxa uu muuqdaa inuu go'aankaas go'aan aad iyo aad u qiimo badan oo Soomaalida qarannimadeeda ka turjumaya sababtuna waxa weeye wadanka Soomaaliya 50 sano in ka yareen uu xor yahay marka in hadda maanta la weydiiyo oo dawladda Soomaaliya la waraysto la weydiiyo maaragtay waxay samaynaysaa iyada loo yeeriyo oo waxa nasiib darraa marka waxaan qabaa go'aankaas inuu yahay go'aan aad iyo aad maaragtay runtii qiimo u leh runtii waxaan u arkaa dawladda Soomaaliya in ay mowqif ka qaadatay xogaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya soo xil saartay
waayo waddanka dawlad ayaa ka jira nidaam ayaa ka jira gumaysi kuma jirno waddanka waxa ugu sarreeyana waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka labada aqal sare iyo kan hoosaba marka aad ayaan ugu raacsanahay qofkii ay ka soo saareen dawladda waa taageersanahay waxay qabatana Allah la qabtaa leh Soomaaliya waxay xaq u leedahay ilaalinta arrimaheeda u gaarka ah mana jirto cid xadgudub ku samayn karta sharafta u gaarka ah iyo qaranimada Soomaaliya